waxaanu idin soo gudbin doonaa barnaamij kooban oo ka hadlaya xogsiraadka hubka cusub ee dalka Ruushka sanadkan gudihiisa hirgeliyay waa saanad haba yaraatee wax ibni aadam ay ku dagaalameen sidoo kale xubintan waxay tibaaxaysaa colaadda la bijbaaran ee u dhaxaysa Putin iyo Trump qaybta hore hawlgalka waxaa bilaabaya diyaaradaha dagaalka F-22 iyo B-12 oo ah modelka ugu casrisanaa ee bilowgii sanadkan la hirgeliyo labada diyaaradood iyo diyaarado kale oo lagu wardiinayaba waxay ka duulayaan madaar ay leeyihiin ciidamada sirta ah ee hawlgallada degdega ah sameeyay ee dalka Ruushka muddo yar kadib diyaaradda F-22 waxay bilaabaysaa natiijada hawlgalka qaybtiisa koowaad iyadoo daadanaysa 450 aaladood oo ah hubka casriga ah Covid marka ay u soo jiraan dhulka waxay bilaabayaan mid kastaba inay goosato baalashudu khaas ah si taxadar badan ay mid kastaba ugu soo dhacaysa dhulka iyadoo aanu shaqadaasi dareemi karin askari kasta oo heeganay dababaadka difaaca ee raaca hore ee ciidamada Mareykanka ayaa soo dhaqaaqaya marka ay xogta rasmiga ah ay helaan muddo yar kadibna aaladihii oo si automatic ah u dareemaya kaariyaasha cadawga ayaa horbilaabaya rasaasta tadabxidka koowaad saddex raac oo kala dambeeya una habaysan qaad difaac ayaa xabad aan kala go'ayn ku asqeynaya bataliyada taangiyada ah iyadoo si dhib yar loo ogaansanaya taangiyada Trump ee modelkoodu ahaa 2017 mar labaad ayaa la tiribadiyay taangiyadii weerarka ah ee Trump halka weli ay dagaalka ay ku jiraan saddex diraac ee hubkii casriga ah ee Ruushku welina awood iyo gacan ku haynta goobta dagaalka waxa haya Ruushka markan diyaaradda B-12 ayaa qabsanaysa waajibaadkeeda iyadoo soo daadinaysa kumanaan taangiyada diyaaradaha ka hortaga ah oo robot ah si casri ah loo farsameeyay isla sidii kuwii hore ayay goosanayaan baalashuudka iyagoo si tartiib ugu duldegaya difaaca cadawga ee kaymaha ku jira taangigan yar waxa uu awood u leeyahay in uu isku eegaysiyo dhulka ama doogga sidoo kale waxa uu xambaarsan yahay dhuun madfac oo loogu talagalay ugaarsiga diyaaradaha droonka ee aan duuliyaha lahayn dababaadka Trump ayaa mar kale soo qaaday duulimaad ballaaran oo aanay u kala harin iyadoo diyaaradda drone ay qaadanayso markan booskeeda ku aadan duulimaadka taangigii yaraa ee robotka ayaa waxa uu bilaabayaa dabargoynta cadawga duulaanka ku ah dhanka kale dababaadka Trump ee duuga ah ayaa yareysay xirfadda dagaalka gabagabadii waxaa ku muuqda raqda taangiyadii Trump oo meel walba wadan iyo holaca ay reebeen robotyadii Putin ee casriga ahaa
Donald Trump sanadkan dhamaadka wax miisaaniyad xoogan kuma bixin dhanka ciidamada isagoo ka gaabiyay tayeynta iyo kor u qaadida ciidankiisa isagoo danaynaya oo kaliya booqashada dariska iyo cusboonaysiinta cunaqabataynada